arrintaas waxay mudan doontaa cawaaqib xumo aan hadhow la mahadin doonin. waxaan isagana ku wargelinayaa madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xubinta koowaad ee guddida fulinta ah in uu nagala soo qayb galo shirka baritoola ka dhici doona xarunta dhexe ee xisbiga. bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waan idin salaamayaa bahdiina warbaahinta. waxa aan maanta halkan ka iclaaminayaa baritoole oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23 Disembar 2025 ahna maalin Talaada in uu xarunta dhexe ee xisbiga ka qabsoomi doono shir muhiim ah oo lagu lafaguri doono arrimaha xisbiga. markaa xubnaha guddida fulinta kaga jira xisbiga, xubnaha golaha wakiilada kaga jira xisbiga, xubnaha golaha deegaanka ee xisbiga waxaan ku wargelinayaa in ay baritoole 8 aroornimo yimaadaan xarunta xisbiga. sidoo kale waxaan isagana ku wargelinayaa madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xubinta koowaad ee guddida fulinta ah in uu nagala soo qayb galo shirka baritoola ka dhici doona xarunta dhexe ee xisbiga. sidoo kale waxaan mar labaad ku wargelinayaa xukuumadda in ay faraha kala baxdo arrimaha gudaha ee xisbiga kulmiye iyada oo ay daliil u tahay warqaddii sharci darrada ahayd ee uu guddoomiyihii hore ee xisbigu soo saaray in laga baahiyey idaacadda radio Hargeysa. madaxweynaha waxaan ka codsanayaa oo anina saaxiibkaya ahna guddoomiyahaygii hore ee golaha wakiilada ixtiraam badan aan u hayo in uu hay-adihiisa kala duwan uga digo in ay soo faragashadaan arrimaha gudaha ee xisbiga. haddii ay taasi dhici weydo arrintaas waxay mudan doontaa cawaaqib xumo aan hadhow la mahadin doonin.